rajo beeshay ku rafo inta roon baabi'i waa arrinta uu qorsheeyey madaxweynaha u arka markan in gacantiisa laga saaray guud ahaanba qorshayaashiisii iyo sidoo kale geedi socodka duulaankiisa. Waxaan idiin soo gudbin doonaa liiska haldoorka la doonayo in la qaarijiyo ee nolosha la dhaafiyo, bartilmaameedyada gaarka ah ee loo dejiyey iyo tabta iyo xeeladda la doonayo in duulaan loogu qaado, iyadoo afku uu yahay mid nabadda iyo wada hadallada iyo dib u heshiisiinta ku dhawaaqaya. Muuqaalka sheergaree la wadaag saaxiibada aragtidaana qaybta hoose noogu reeb like-na saar. Anna ku bilowna waxaa soo ifbaxaya cabsi weyn oo muujinaysa in la bartilmaameedsanayo liiska saraakiil loo arko inay muhiim yihiin, kuwaas oo qaarkood ay si degdeg ah usoo ifbaxeen kadib nuqul dhambaalka wararka uu helayna ay ka muuqdaan saraakiil kala duwan oo qaarkood la yaqaano halka kuwo kalena ayna bulshadu sidaa u garanayn oo ay ka tirsan yihiin ciidamada qalabka sida. Waa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo markaan fulinaya qorshaha rajo beeshay ku rafo oo inta roon ka baabi'i, isla markaana doonaya in uu magaalada dhulka dhigo, sidoo kalena uu ka laayo garaadada, isimada iyo cid walba oo waxtar u leh dadka deegaanada SSC haddaynan ku baraarugin oo aanan si degdeg ah aynan arrintaasi kaga farcelin. Qorshaha madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu u dejiyey ciidamada Somalilan sidoo kalena uu hakiyey dagaaladiisii uu dib ugu qabsanayay magaalada waxaa ka mid ah xeelado la doonayo in lagu baadigoobo saraakiisha iyo shakhsiyaadka la baadigoobayo ama la raadinayo la doonayo in nolosha la dhaafiyo. Waxaa soo ifbaxay ugu yaraan 15 sarkaal oo iskugu jira mas-uuliyiin heerar kala duwan leh iyo sidoo kale isimo dhaqan oo kasoo dhex muuqanaya liiska. Dadka ugu horeeya ayaana waxay yihiin kuwa maalmihii lasoo dhaafay ay si weyn u hadalhayeen xubnaha mas-uuliyiinta hay-adaha ammaanka iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka qalabka sida ee ku sugan afaafka hore. Muuqaalka like saar, sheergaree la wadaag saaxiibada. Shakhsiyaadka la doonayay iyo saraakiisha muhiimka ah ee madaxweyne Muuse Biixi uu dejiyey in la qorsheeyo lana qaarijiyo waxaa ka mid ah Garaad Jaamac Garaad Cali oo ka mid ah isimada hogaaminaya dhaqdhaqaaqyada ka socda aagga Laascaanood. Waxaa sidoo kale isna bartilmaameedka koowaad ah Cabdirasaaq Falaalug oo ah hafayeenka guddiga 33 oo dhammaantood bartilmaameed ah isla markaana la qorsheeyay in la beegsado. Waxaa qayb ka ah Korneyl Fool Hawiye oo asna ka mid ah saraakiisha ciidamada horey uga tirsanaa ciidanka Somalilan balse ka goostay oo markan ku soo biiray ciidamada SSC. Axmed Nuur waa Cabdirashiid Axmed Nuur Fool Hawiye ayaa loo yaqaanaa, waxaana in badan hogaaminayay ciidanka Somalilan ee qaybo kala duwan ku leh fadhiyada ee aagga Laascaanood, wuxuuna ka mid noqday dadkii ugu horreeyay ee iskaga baxay ciidanka iyo garabka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kadib markii la joojin waayey weerarada, duqeymaha iyo sidoo kale beegsiga sirsifaynta ee lagu hayo dadka deegaankiisa. Ragga la baadigoobayo madaxweyne Muuse uu amray in la qabto ama la qaarijiyo waxaa ka mid ah Cabdi Madoobe oo ka mid ah asna saraakiisha kasoo jeeda degmada Buuhoodle, waxaana sarkaalkan magaciisa u gudbiyey dalalka Kenya, Itoobiya iyo sidoo kale Jabuuti iyo Mareykanka oo ka dalbaday inay yihiin shakhsiyaadkan argagixiso mudan in la qabto. Waxaa shakhsiyaadka madaxweyne Muuse uu baadigoobayo ka mid ah Xildhibaan Cabdi Qowdhan oo ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, oo asna uu kaga shakisan yahay in uu isku soo taagayo madaxweynaha SSC marka la gaaro guusha ugu dambeysa ee ciidanka Somalilan ay guud ahaanba faaruujiyaan gobolka. Inay Jabuutaawi liiska ayuu saaran yahay, waxaana ka mid yahay shakhsiyaadka sida gaarka loo baadigoobayo lana doonayo in la bartilmaameedsado. Xubnaha mas-uuliyiinta kale ee liiska ku jira inkastoo ay badan yihiin waxaa qayb ka ah gudoomiyihii hore ee Golaha Wakiilada Somalilan Cabdirasaaq Khaliif oo weli ku sugan aagga Somalilan xilkana aan iska casilin, balse madaxweyne Muuse uu soo jeediyey in si degdeg ah loo bedelo looguna bedelo Salmaan Cali Koore kursigaas iyo isaga si loo helo shakhsi adag oo mar walba u heelan daacadna u ah madaxweyne Muuse Biixi oo aan dhinacna u dhaafi karin. Waxay tani muujinaysaa tillaabooyinka madaxweyne Muuse iyo sidoo kale xubnaha kale ee saaxiibada ay yihiin iyo qaabka ay iskula shaqeynayaan. Waxaa jira walwal xooggan oo ay dareemayaan xubno ka duwan oo ka tirsan ururada iyo qaybaha bulshada, kuwaas oo sheegay inay ka cabsi qabaan in lala beegsado dilalkii iyo qaarijintii qorshaysnayd.
Dabagal uu sameeyay dhambaalka wararka ayaana muujinaya in madaxweyne muuse iyo saraakiishiisu ay siyaabo kala duwan ay u qorsheeyeen in loola xaajoodo islamarkaana loola xisaabtamo kuwa loo arko inay soo abaabuleen gurmadiyada iyo ciidamada. Waxaa ka mid ah liiskan saraakiil kala duwan oo ka tirsan ciidamada kasoo gurmaday beelaha Warsangeli oo uu ka mid yahay Genaraal Indhayare. Waxaa sidoo kale ka mid ah dadka beelaha kala duwan ka yimi ee la beegsanayo saraakiisha hogaaminaya ciidamada Cismaan Maxamuud, Cumar Maxamuud iyo sidoo kale Ciise Maxamuud ee gaaray aagga magaaladaasi. Beelaha Dubeys, Warsangeli iyo sidoo kale Madhibaan ayaa iyaguna qayb ka ah kuwa la beegsan doono ee loo arko inay leeyihiin khataro kala duwan. Waxa uuna sheegay madaxweyne muuse in qorigu inta uu shaqeynayo ay tahay qorshaha kaliya ee looga argoosan karo kuwa ugu dambeyntii ku guuleystay in Somalilan ay ka gooyaan gobolada SSC. Madaxweyne muuse ayaa u arkaa in tilaabadan ay tahay midda kaliya ee looga hortagi karo hab ahaana loogu xisaabtami karo loogana falcelin karo inay gacanta ka baxday magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Ciidanka ugu badnaa ayuu magaalada kusii daabulaya, waxaana sidoo kale la xoojiyay tirada hubiyaasha iyo sidoo kale qoryaha madaafiicda ee la geeyay halkaasi. Sirdoonka ayaa la howlgeliyay waxaana lacago kala duwan loo ballan qaaday kuwoodna la siiyay qaar ka mid ah dadka deegaanka ee magaalada Laascaanood, kuwaas oo qaarkood ay u muuqdaan in ay ku hayb yihiin saraakiisha iyo sidoo kale madaxda dhinaca Somalilan ku maqan ee dhulbahanti oo si gaar ah iyagana loo laaluushayo. Wararkaanu helnay ayaa xaqiijinaya in ay lacagahaasi si gaar ah u bixinayaan mas'uuliyiinta kala ah Cabashe iyo sidoo kale saraakiisha kale ee madaxweyne muuse sida tooska kaga socda, kuwaas oo doonaya in ay wiiqaan awood walba oo ay isku heli karaan dadka SSC ku sameyn karaan maamul goboleed, iyadoo sidoo kale ay jirto tillaabooyin kale oo ay qaadayaan ciidamada ku sugan duleedka magaaladaasi. Madaxweyne muuse Biixi Cabdi ayaa u arkaa in si walbo gacanta magaalada Laascaanood looga saaro ay dadku la barooran doonaan dhibaatooyinka soo gaara marka lagu guuleysto qorshahani. In lasoo basaaso halka ay ku shirayaan garaadada iyo 33 xubnood ama halka ay ka dhacayaan shirarka waaweyn ee ballaaran ee ay iskugu imaanayaan saraakiisha ciidamada iyo qeybaha bulshada laguna marti qaabayo wafuud kala duwan, waxay ka mid yihiin bartilmaameedyada gaarka ah ee la qorsheeyay in madaxweyne muuse uu dhexda kala dhaco madaafiicdiisa islamarkaana uu ku baargaabiyo. Sida xogtaanu ka helnay oo saraakiisha ciidanka Somalilan kasoo xiganana waxaa jira shakhsiyaad kala duwan oo ciidanka hore kaga tirsanaa kuwaas oo weli la shaqeynaya, islamarkaana qaarkood ay gabaad ka dhigteen deegaano ka tirsan magaalada oo ay ku dhuumaaleystaan dhulka miyiga ah, halka kuwo kalena si toos ah ay u caawiyaan oo ay u joogaan. Madaxweyne muuse ayaa ka hor inta ciidankiisu aynan u dhaqaaqin dhinaca Caynabo iyo Og waxa uu doonayaa inuu ka takhaluso shakhsiyaadka loo arko inay haldoorka bulshada u yihiin. Saacadihii ugu dambeeyana waxaa xoogeysanayay feejignaanta ay sameynayaan garaadada iyo simada, iyadoo weliba warbixino kala duwan aanu la wadaagnay qaar ka mid ah dadka deegaanka. Dhinaca kalena madaxweyne muuse iyo guddiyadiisa kala duwan ee kulanka yeeshay ayaa ku guuldareystay inay si degdeg ah wax kaga qabtaan islamarkaana ay kaga falceliyaan khataraha kala duwan iyo xaaladaha ay ku jiraan dalalka gobolka Geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya, iyadoo si degdeg ah loo xalinayo colaadda SSC oo ah mid Somalilan dhaawac weyn ku reebtay. Dowladaha kale ah Jabuuti, Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Masar, Taiwan iyo meelo kale ayaa la aaminsan yahay inay si toos ah u garab taagan yihiin xukuumadda muuse Biixi Cabdi. Taasina waxay abuurtay markan loolanka adag ee ka taagan magaalada Laascaanood, waxayna sidoo kale abuurtay oraahda caanka baxday ee rajo beesha ku rafo oo inta roon ka la islamarkaana baabi'i waa arrimaha ugu muhiimsan ee loo shiday colaadan, islamarkaana ugu dambeyntii loogu guuleystay in ciidamada Somalilan duleedka looga saaro magaaladaasi. Weli waxay doonaysaa xukuumaddu inay dib ugu laabato magaalada iyadoo galaafanaysa shakhsiyaad haldoor u ahaa iyo sidoo kale kuwa waxtarka ee qeybta ka qaadan kara qorshe walba oo goboladaasi ay ku gaarayaan nabadgelyo waarta iyo sidoo kale xasilooni buuxda, ugana gudbaan haysashada khilaafka iyo sidoo kale madaafiicda joogtada loola dhacayo. Waxaa ilaha aanu xog wareysana ay muujinayaan inay si gaar ah ay dadka deegaanku kaga walwalsan yihiin
natiijada ka dhalan karta duqeymaha aan kala sooca lahayn ee ciidanka Muuse Bixi ay sida tooska ula bartilmaameedsadaan dadka shacabka ah, iyadoo weliba xilligan ay kusoo kordheen qaabab kale oo basaas oo looga qayb qaadanayo dagaalkan, isla markaana loogu adeegsanayo fariimaha la dirayo hab dadban inay diriirta u kiciyaan ugana qayb qaataan. Beelaha isimada iyo sidoo kale garaadada ayaa dhinacooda dadaal badan ku bixinaya sidii ay si dhab ah uga hortagi lahaayeen arrintaasi. Muuqaalka sheer garee la wadaag warbixintan saaxiibada qaybta hoosena like saar. Nabadgelyo.